بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت وبشو لواتن يلاوا بشي شنادا ما مي لواتن وحن ما أنت نسلنا هدي إلهي يرادو ومالن جمعة بريتو وعيد هدي إلهي يرادو وحن لنا هاي مركا وحن همبليو مغا حسبيغا سنانتا أمانكا يومدنما وقلولينتا همبليو أدرنا عالم الإسلام وحن لنا هاي عيد وناكسن عيد الفطر وناكسن ومدى الصوماليات وحن لنا هاي سيدو كالي برواقو نودجليو يو أمان إن شاء الله تعالى أيام رجينينا إن شاء الله تعالى بريتو هدي إلهي يرادو وإيدس سيدا درتيد وحن لنا هاي ومدى صوماليات ميلكا صوبا إيجوغان عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن أيام لنا هاي تنكالي وحن لنا هاي إن شاء الله تعالى سيدا الله سعوتان dalka wuxuu ku jira marxalado aad u culus dhibaato badan ayaa jirta maxaa la yiraahdaa dhibaato siyaasadeed iyo dhibaato amni iyo dhibaato maxaa la yiraahdaa dhaqaale intaas ayay iskugu jiraan oo daba taagan waqtiga la socotaan waxaa jira baraka badan ayaa iska jira waxaa jira fatahaadyo oo meel kastaba dib ka geysteen khasaare ka geysteen waxaa jira maxaa la yiraahdaa uleysyo siyaasadeed oo dad gudaheena waxaa jira sidoo kale damac xun oo dowladaha diriska qaar ka mid ah ay ku fikirayaan in ay Soomaaliya isleeyihiin waqtigii ugu fiicnaa la weerari lahaa oo dhul laga qaadan lahaa ayaa isleeyihiin sida Kenya damaxmada ay qabto waxaan leenahay marka intaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in Soomaali meel kastaba ay joogaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay hal mid iskaga noqdaan inaan marna loo ogolaanin dhib kastoo ha dhaco uleysyo kastoo ha dhaco anaga gudaheena laakiin marna inaan loo ogolaanin inuu dhibkaas oo aniga dhexdeena ah oo aan u ogolaano nin shisheeye ama dal shisheeye inuu dalkeena goosto inaan marna lagu fikirin ayaan jecelnahay Kenyana haddii ay mooday in Soomaaliya xilligii la weerari lahaa dhul laga heli lahaa ay haddii ay u qaadatay waxaan leeyahay ka fiirso waxaan aad boqolkiiba boqol aaminsanahay haddii arrintaas kusii socoto inay Kenya ku qasaari doonto ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay wixii ay hadda haysato inay daadin doonto ayaan u malaynayaa sida darteed Kenya waxaan isleeyahay u malaynay Soomaaliya haddii ay ariiri ku jirto haddii ay dhibaato uleys dhaqaale iyo uleys iyo kale taagan tahay haysleeyihiin xilligii laga faa'iidaysan lahaa oo dhul laga goosan lahaa midna haysku dhihin arrintaas ka fiirso ayaan leenahay diris wanaag wax ka fiican ma jiro weligeena diris baan ahaan doona ilaahay baa diris nagaga dhigay marka inaan diris ahaano ilaahay baa loo qoray diris wanaaga ku dadaala aniga sida ugu dadaalin adigana ku dadaal ha ku fikirin ha ka dhihin waa ka faa'iidaysana dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa u jeedin ariiriga lagu jiro waxaa u jeedin xaaladii lagu jiro waqti kastaba waxaa loo baahan yahay in lagu xisaabtamo xaaladii la taagan yahay duruuftii la taagan yahay annaga haddii dhinaca doorashooyinkaan u kaco waxaan rabnaa inaan helno nin iyo cod inuu meesha ka dhacdo hase ahaatee marka aan fiirino waxyaabaha jira duruufaha jira cudurada caalamka dhan saameeyay marka aan ku darsano iyo arrimaha iyo waqtiga aan haysano waxaad moodaa inaysan suuragal ahayn nin iyo codkiisa inuu dhaco balse waxaan leeyahay qaab kale oo doorasho ah oo aan xisbiyada ka marneen waa inuu dhaca qaab kasto ha ahaado oo loo
baahan yahay oo isbeddel keeni karo waa loo baahan yahay si looga baxo isku dhac siyaasadeed sidaa darteed waxaan leenahay haddii la waayo nin iyo codkiisa waana u jeednaaye markii loo xisaabtamo marxaladda lagu jiro saacadaha lagu jiro waqtiga la joogo inaysan suuragal ahayn laakiin waxaan leenahay nooc kasta oo doorasho xilligeeda markii la gaaro waa inay dhacdaa oo aan xisbiyadana ka marneen sidaas ayaanu ku talinaynaa haddaanu nahay xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta samo markii lasoo gaabiyo sidoo kale waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa in hogeyaheeni guud ilaahay ha u naxariisto shaahid aadan Khayrdon naga dhintay ilaahay ha u naxariisto bedelkiisa ayaanu rabnaa si dimuqraadi ah inaan ku doorano sidaa darteed waxaan leenahay qof kastoo rajo kale qof kastoo damac kale inuu hogeeye guud ka noqdo xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta samo waa soo dhaweynaynaa haddii uu soo buuxiyo shuruudaha xisbiga mar hore dhigtay intaas ayaan Soomaali dadweynaha aan ka codsanaynaa inay arrintaas ay la socdaan sidoo kale taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay ciid wanaagsan si gaar ah u leenahay ciid wanaagsan hala dadaalo ha lagu fikiro sida dalka iyo diintaba loo badbaadin lahaa ha lagu fikiro Soomaalinimada ha lagu fikiro midnimada Soomaaliyeed waxaan leenahay wax ka fiican oo Soomaali oo isbiirsatay oo midowday wax ka fiican ma jiro wax taas lagu bedeli karo ma jiro sidaa darteed waxaan leeyahay gacmaha isqabsano aan Soomaali meeshii hore aan ku elino ilaahay idinkiis anigoo garabsanayno rabbigeena anigoo garabsanayno ulma-udiinkeena anigoo garabsanayno aqoon-yahanteena waxaan leenahay aan ku dadaalno ilaahay aan barino si aan Soomaaliya u gaarsiino halkii ay joogtay meeshii ka fiican waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato. Salaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.